waagii hore tuulo yar ayaa waxaa ku noolaan jirtay haweeney waayeel ah. Aad ay u da'weyneed, timaheeda way cadaadeen, wejigeedana waxaa ka muuqday laablaabyo jilicsan, laakiin indhaheeda waxay ahaayeen kuwo ifaya oo naxariis ka buuxdo. Dadka tuulada oo dhan way jeclaayeen, sababtoo ah mar walba way faraxsanaan jirtay, xitaa markay nolosha adag tahay. Waxay keligeed ku nooleed guri yar oo ku yaalay agagaarka geed weyn oo banyaan ah. Caruur ma lahayn, ninkeeduna wuxuu geeriyooday sanado badan ka hor. Si kastaba ha ahaatee, marna ma caban jirin. Waxay fariisan jirtay geedka hoostiisa, dadka la hadli jirtay, mar walbana way dhool cadeyn jirtay. Tuuladaas dadka aad bay u shaqayn jireen. Qaar waxay ahaayeen beeraley, qaarna nijaaro, kuwo kalena waxay ka shaqayn jireen suuq yar. Mararka qaarkood roobku ma da'o, dalagyadu way qalali jireen. Mararka qaarkood dadku way xanuunsan jireen oo shaqo ma aadi karin. Noloshu ma sahlanayn. Dad badan oo tuulada ka mid ahna waxay badanaa ahaayeen kuwo murugo leh ama walwalsan. Maalin maalmaha ka mid ah, gabar dhalinyaro ah oo la oran jiray Raada ayaa u timid. Raada way ooysay, wejigeeduna wuxuu ka buuxay welwel. Waxayna tiri, ma garanayo waxa aan sameeyo. Ninkayga wuxuu aaday magaalada si uu shaqo u helo, laakiin wax lacag ah ma uusan dirin. Caruurtayda way gaajaysan yihiin, waana cabsanayaa. Haweeneydii waayeelka ahayd waxay eegtay Raada iyadoo si tartiib ah u dhool cadeynaysa. Waxay tiri, fariiso ilmahayga, ii sheeg maxaad u malaynaysaa inay dhici doonto. Raada waxay tirtirtay ilmadii, waxayna tiri, ma garanayo, waxaan dareemayaa in wax xun dhici doonaan haddii ninkayga shaqo waayo, haddii uuna iloobo. Haweeneydii waxay madaxa si tartiib ah u ruxday, waxayna tiri, markaan ka fikirno waxyaabo xun waxaan dareennaa xumaan badan, laakiin haddii aan ka fikirno waxyaabo wanaagsan waxaan dareennaa ficnaan. Mararka qaarna wax wanaagsan ayaa dhaca. Raada waxay weydiisay, laakiin sidee u fikiri karaa si wanaagsan marka wax walba ay xun yihiin? Haweeneydii mar kale way dhool cadeysay, waxayna tiri, aan kuu sheego sheeko. Raada si xiiso leh ayay u eegtay. Haweeneydii waxay bilowday, mar waxaa jiray nin sabool ah oo aan waxba haysan, ma lahayn cunto, lacag ama qoys. Wuxuu fariistay webi agtiisa isagoo ooyaya. Haweeney waayeel ah ayaa u timid, waxayna tiri, maxaad u ooynaysaa? Ninkii wuxuu yidhi, waxba ma haysto, sidee u farxi karaa? Haweeneydii way dhool cadeysay, waxayna tiri, waxaad haysataa webiga, waxaad haysataa geedaha, waxaad haysataa qoraxda, eeg hareerahaaga. Qurux iyo nolol ayaa meel walba kaa jirta. Haddii aad ka fikirto wax aadan haysan, mar walba waad murugoon doontaa, laakiin haddii aad ka fikirto waxa aad haysato, waxa aad heli doontaa deganaan. Ninkii wuu dhegaystay, si tartiib ahna wuu joojiyey oohintii, wuxuuna bilaabay inuu arko waxyaabaha wanaagsan ee ku hareeraysan. Laga bilaabo maalintaas, noloshiisu waxay bilowday inay isbedesho. Haweeneydii waayeelka ahayd waxay eegtay Raada, waxayna tiri, waad aragtaa gacalisadeyda, ninka noloshiisa iskuma bedelin sabab la xiriirta sixir. Way isbedeshay sababtoo ah isaga ayaa bedelay fikirkiisa. Marka aan si wanaagsan u fikirno, qalbigeenu wuu fududaadaa. Waxaan awoodnaa inaan si fiican ula tacaalno dhibaatooyinka. Raada waxay ka fikirtay sheekadii, waxayna tiri, fikirkaygu run ahaantii ma bedeli karaa nolosheeda? Haweeneydii si degan ayay u dhool cadeysay, waxayna tiri, haa, haddii aad subax kasta toosto oo aad naftaada u sheegto, maanta waxay noqon doontaa maalin wanaagsan. Waxaad heli doontaa awood aad ku shaqayso, caruurtaada ku daryeesho, ugana sugto ninkaaga rajo. Laakiin haddii aad keliya ka fikirto wax xumaan kara, waxaad dareemi doontaa murugo iyo tabardaro. Raada si tartiib ah ayay u madax ruxday, waxay tiri, waan fahmay, waxaan isku dayi doonaa inaan ka fikiro waxyaabo wanaagsan hadda kadib. Taas waa tallaabada ugu horeysa ilmahaygii, ayay tiri haweeneydii. Raada waxay ka tagtay guriga haweeneydii iyadoo qalbi fudud leh. Maalin kasta waxay xasuusan jirtay erayadeeda, waxay toosi jirtay oo nafteeda oran jirtay, maanta waxay noqon doontaa maalin wanaagsan. Waxayna u shaqaysay si adag, caruurteedana way daryeeshay, waxayna u ducaysay soo laabashada ninkeeda. Toddobaadyo yar kadib, Raada waxay heshay warqad ka timid ninkeeda. Wuxuu ka helay shaqo magaalada, wuxuuna bilaabay inuu lacag u soo diro guriga. Raada aad bay u farxday, waxayna u carartay gurigii haweeneydii waayeelka ahayd si ay ula wadaagto wararka. Haweeneydii way dhool cadeysay, waxayna tiri, waa aragtaa gacalisadeyda, marka aan si wanaagsan u fikirno waxaan nolosheena ku soo jiidanaa waxyaabo wanaagsan. Dhibaatooyin mar walba way imaan doonaan, laakiin haddii aan la kulanno qalbi rajo leh waan ka adkaan karnaa. Si tartiib ah, dadka kale ee tuulada ayaa bilaabay inay maqlaan ereyada xikmadda leh ee haweeneyda. Dad badan ayaa u imaan jiray oo la wadaagi jiray dhibaatooyinkooda. Haweeneydii waxay mar walba siin jirtay talo isku mid ah, ka fikir wax wanaagsan, wanaag wuu imaan doonaa. Dadka tuulada waxay sii jeclaadeen iyada, sababtoo ah erayadeeda waxay bedeleen noloshooda. Waxay baratay awoodda fikirka wanaagsan.